asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo xogta ciyaaraha qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta baris st german oo ganaax culus duldhigtay neymar junior iyo xaaladda oo faraha kasii baxaysa garsoorihii ka caraysiiyey leo messi ee dhexdhexaadinayay kulankii brazil iyo argentiin oo hadlay markii ugu horeysay kooxda real madrid oo gaartay dalkaasi canada halkaasi oo 10 maalin ee soo socota ay ku sugnaan doonaan liverpool oo doonaysa ciyaaryahan marco asensio iyo kulamada caawa la ciyaari doono koobka qaramada qaaradda Afrika. aynu ku horeyno Paris Saint-Germain ayaa ganaax waxay duldhigtay Neymar Junior. Neymar ayaa ganaax culus la kulmay oo kooxda maamulkeeda PSG markaas ay duldhigeen kadib markii ay aad uga caroodeen in waqtigii laga doonayay ciyaaryahankan inuu soo xaadiro tababarka uu markaas imaan waayay. Warbaahinta dalka Brazil ayaa lagu shaaciyay qaarkood in Paris Saint-Germain ay ganaax duldhigtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Neymar Junior kadib markii uu seegay waqtigii tababarka uu markaas ku soo laaban lahaa. wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in ganaaxa lacagta Neymar la duldhigay ay gaarayso 375,000 oo euro waxaana ganaaxaasi markaasi ciqaab looga dhigay Neymar oo amar diido ballaaran sameeyay. aabaha dhalay Neymar Junior oo la hadlay Fox Sport ayaa sheegay inuu aad uga caraysan yahay wararkaasi ee Paris ka soo yeeray ee ganaaxa. Neymar aabihii ayaa cadeeyay in sababta isaga iyo wiilkiisa iyo Brazil u joogaan in markaasi arrin ganacsi la xiriirta arrinta, laakiin wararka ayaa waxay sheegayaan in arrintaasi fursad weyn uga dhigi karta kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo Barcelona midkood inuu ciyaaryahankan ku biiro maadaama khilaafka uu cirka isku sii shareeray. dhinaca kale garsoorihii ka caraysiiyey Leo Messi ee dhexdhexaadinayay kulankii Brazil iyo Argentin ayaa hadlay markiisii ugu horeysay. ninka lagu magacaabo Rodi Zamborona oo ah garsoorihii dhexdhexaadinayay kulankii semifinalka Copa America ee u dhaxeeyay Argentina iyo Brazil ayaa ka baxay aamusnaantii waxaana uu markaasi uu su'aal ka keenay sababtii garsooriyaasha VAR aysan ugu wicin in uu eego qaar ka mid ah go'aanadii muranka dhaliyay. Leo Messi ayaa ka mid ahaa dhowr ciyaartoy oo Argentin ah oo ka carooday go'aankii garsoorayaasha ee markaasi kulankaasi iyadoo xulka Argentin laga diiday 2 rigoore intii ay socotay ciyaartii markaasi xulka labadaasi xul u dhaxaysay. mid ka mid ah rigoorayaashii la diiday waxaa qayb ka ahaa Nicolas Otamendi kaas oo qalad kala kulmay xidig Brazil ee lagu magacaabo Arthur Melo kadib kubad koorna ahayd oo la soo tuuray. Otamendi ayaa isaguna waxa uu sheegay in arrintaasi aad uga xumaadeen. garsoorayaasha VAR waa ay eegaan waxaana ay go'aansadaan in ay tahay 50 markaasi ima aysan sheegin inaan eego kuwa markaasi ku sugnaa ee goobta ee VAR laga maamulo. taasi ayaana keentay in aan dib u eegin ayuu yiri garsoorihii dhexdhexaadanayay kulamadaasi markaa u dhaxeeyay labada xul ee Brazil iyo Argentina. si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay garsoorahaasi oo lagu magacaabo Rodi Zamborona in ciyaaryahan kasta looga baahan yahay inuu ku qanco go'aanka garsooraha markaasi ciyaarta dhexdhexaadinayo. Leo iyo Otamendi iyo dhammaan ciyaartoyda qaarkood ee markaa kulamadaasi oo kale ciyaaraya waxaa looga baahan yahay in markaasi wax weyn ay ka fikiraan aysan ka fikirin kaliya guusha iyaga markaas soo gaarayso ayuu yiri garsoorahaas. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay gaartay dalka Canada halkaasi oo marka ay ku sugnaan doonto 10 maalin ee soo socota. Real ayaa waxa ay markaasi ay u duuleen dalka Canada halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay oo taageerayaasha faraha badan ee Real Madrid ay ku leedahay dalkaasi Canada. hotel lagu magacaabo Ritz Carlton Hotel ayaa halkaasi ku yaala ayay degeen waxaana la sheegay in marka halka ay ku sugnaan doonaan ilaa iyo 19 bishan iyadoo taan ay u noqonayso 10 beri inay halka ku sugnaadaan.
ciyaartoyda waaweyn ee markaasi dhowaan ay la soo saxiixtay kooxda kubadda cagta Real Madrid sida Eden Hazard ugu horeeyo ayaa ka mid ah ciyaartoyda markaasi halka gaaray. waxaa ka mid ah ciyaartoyda kale ee horey kooxda ugu sugnaa oo markaasi gaaray dalkaasi Canada, Luka Modric, Sergio Ramos oo kabtanka ah, sidoo kale Karim Benzema ayaa qaybka ayaa leeyahay. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ninka ugu sareeya ee kooxda Real ee madaxweynaha u ah Florentino Perez markaasi uusan ka mid ahayn dadka halka gaaray oo markaas safarka la socday ayaa lagu yiri warbaahinta war ay qortay. laakiin waxaa la sheegayaa in gadaal uu ku gaari doono ama gadaal uu ka tagi doono halkaasi Florentino Perez iyo ciyaartoy kale oo doora. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay aad u raadinaysaa saxiixa ciyaaryahanka kubad sameeyaha ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Marco Asensio, laakiin wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in Marco Asensio uusan meelna ugu soconin kooxda kubadda cagta Real Madrid. macallin Zinedine Zidane ayaa waxa uu yahay macallin si weyn ugu kalsoon ciyaartoyda da'da yar ee kooxda kubadda cagta Real Madrid u ciyaarta, waxaana la sheegayaa in ay aad u adag tahay in kooxda kubadda cagta Liverpool ay hesho ciyaaryahankan adeegiisa. laakiin macallin Jurgen Klopp oo ah macallinka kooxda Liverpool ayaa aad u doondoonaya ciyaaryahankaasi Marco Asensio oo u ciyaara kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Spain. ugu dambeyntiina caawa ayaa waxaa la ciyaari doonaa koobka qaramada qaaradda Afrika quarter finalkiisa. waxaa is arki doona xulalka kala ah Senegal iyo Benin. hal saaxiibinimo ayaana ciyaartaasi soo dhici doonta saacadda geeska Afrikada bari. sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulan aad u xiiso badan oo u dhexeeya Nigeria iyo sidoo kale South Africa oo marka iyadana ciyaartaasi soo dhici doonta 4 saac habeenimo saacadda geeska Afrikada bari marka saacadu ay tahay. sidoo kale waxaa jiri doona kulan saaxiibtinimo oo kooxda kubadda cagta Chelsea ay markaasi ciyaari doonto macallin Frank Lampard oo kulankiisa ugu horeeyay isagoo macallin kooxda Chelsea oo markaasi wajihi doona koox dalka Ireland ka dhisan oo lagu magacaabo Bohemian. caawa ayaa la daawan doonaa waa 3 saac iyo 45 daqiiqo marka saacadu ay tahay. warkii aad ka daawanayseen xogta ciyaarahana waa nageenta.